General Maxamed Faarax Aydiid waxa uu bishii December sanadkii 1934 ku dhashay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. General Aydiid waxa uu wax ku soo bartay dalalka Talyaaniga iyo Ruushka. waxa uu xilligii gumaystaha la soo shaqeeyay booliskii Talyaaniga oo ku biiray sanadkii 1952. waxa uu markii dambe ku biiray ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo uu ka gaaray darajada generaalka kulliyadda militariga ee Faranse ee ku taalla magaalada Moscow ee dalka Ruushka. ayuu sidoo kale culum dheeraad oo dhanka militariga ah ku soo qaatay sanadkii 1969. waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ka soo horjeestay afgambigii militari ee dalka ka dhacay. generaalka ayaa waxaa xabsiga u taxaabtay dawladdii kacaanka oo uu hogaaminayay Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre. Aydiid waxaa xabsiga laga soo daayay sanadkii 1975 dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya sanadkii 1977 ilaa 1978. waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ka qayb gashay dagaalkaasi. General Maxamed Faarax Aydiid waxa uu sidoo kale mar noqday danjirihii Soomaaliya u fadhiyay dalka Hindiya. General Maxamed Faarax Aydiid waxa uu ka mid ahaa hogaamiyaashii ka qayb qaatay dumistii dawladdii dhexe ee hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre. waxa uu sanadkii 1999 noqday hogaamiyihii jamhadda USC. jamhaddaas ayaa ciidamada dawladda Soomaaliya kula dagaalantay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo ugu dambayn ay halkaasi ka saareen. dabayaaqadii bishii January sanadkii 1991 Cali Mahdi waxaa madaxweyne ku meel gaar ah u doortay dad badan oo jamhadda USC ka mid ahaa. arrintaas ayaa khilaaf ka dhex dhalisay jamhadda gudaheeda waxaana madaxtinimada Cali Mahdi diiday General Maxamed Faarax Aydiid oo asagu isku arkayay hogaamiyaha garabka militari ee USC. khilaafka ayaa isku rogay dagaal kumanaan shacaba ay ku dhinteen kumanaan kalena ay ku barakaceen. Aydiid waxa uu arkayay inuu xaq u leeyahay hoggaanka maadaama uu ahaa nin askari ah oo in badan soo dagaalamayay. dagaal xooggan oo bilooyin socday ayaa ciidamo kala taabacsan Cali Mahdi iyo General Aydiid ku dhex maray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaana ka dhashay khasaare ballaaran iyo sidoo kale burbur baaxad leh. sanadkii 1992 golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa go'aamiyey in Soomaaliya loo diro ciidamo nabad ilaalina oo ay hogaaminayso dawladda Maraykanka. dabayaaqadii sanadkii 1992 ciidamada badda ee Maraykanka ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. howlgalkaas oo uu Maraykanku hogaaminayay waxaa loogu magac daray howlgalkii rajo soo celinta. sanadkii 1993 waxaa dawladda Maraykanka ay hogaaminta ciidamada howlgalka ka waday Soomaaliya ku wareejisay qaramada midoobay. wax badanba kama soo wareegin khilaafkii dhex maray General Maxamed Faarax Aydiid iyo ciidamadii shisheeye ee dalka u yimid inay nabadeeyaan. Aydiid waxa uu xilligaasi haystay qaar ka mid ah goobihii muhiimka ahaa ee magaalada Muqdisho. kadib dhowr goobood oo raadiyo Muqdisho ka mid yahay ayay ciidamada Maraykanku duqeeyeen. caradii ka dhalatay arrintaasi waxa ay sababtay in bishii Juun ee sanadkii 1993 taageerayaashii General Aydiid ay dagaal hubaysan kala hortagaan ciidamadii qaramada midoobay. weerar lagu qaaday ciidamadii Bakistaanka ee ka qayb ahaa howlgalka waxaa lagu dilay 24 askari ilaa 60 kale oo dhaawacantay. qaramada midoobay waxay ku dhawaaqday dagaal ka dhana General Aydiid. ciidamadii Maraykanka ayaa guluf colaadeed hoggaanka u qabtay. 3 Oktoobar sanadkii 1993 ciidamada sida gaarka u tababaran ee Maraykanka ayaa howlgal militari ka fuliyay bartamaha koonfurta magaalada Muqdisho. xilligaasi oo ay heleen xog sheegaysa in General Aydiid uu madax sare u kulan kula leeyahay Hotel Olympic ee degmada Howlwadaag. waxaa howlgalka ka qayb qaatay 19 diyaaradood iyo 160 askari oo xaruntooda uga baxay in howlgalkaasi ay ku soo fuliyaan muddo 90 daqiiqo ah. waxayse soo noqdeen 17 saacadood kadib. 50 daqiiqo markii howlgalku socday diyaaraddii ugu horraysay ayaa la soo riday. 20 daqiiqo kadibna diyaaraddii labaad ayaa dhulka lagu soo dhuftay. ciidankii howlgalka waday ayaa la hareereeyey. ciidan dheeraad ah ayaa loo soo diray si loo badbaadiyo ciidamadaasi. waxa uu ahaa dagaal daba dheeraaday oo habeenkii oo dhan socday ilaa 6:15 subaxnimo. Maraykanka ayaa ku guuldarraystay inay gacanta ku soo dhigaan
jenaraal maxamed faarax aydiid bishii maaj sannadkii waxaa si rasmi ah loo soo afjaray dagaalkii Maraykanka ay ka wadeen Soomaaliya 1 Agoosto sannadkii maxamed faarax aydiid ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray dagaal dhex maray isaga iyo Cismaan Caato